السلام عليكم كسو دو جانلكو هدى تاجر هدي آد نوغو عصبتاي فضلا سو دو سبسكرايب جري هدي آد نوغو عصبين آد أصحابتين التهايني أصحابت سو دو هذا ما شاء الله yes maanta waxaan ka hadlaynaa investment iyo sida Tesla loo investment garay maadaama commentayaasha inta ugu badan ay ku saabsaneed hudda investment ka soo hadal hudda Tesla sida shar uga gadan kara marka maanta waxaan go'aansaday inaan investment aan ka hadalno aan xoog saar sida aniga aan investment aan u sameeyo kaleeto yani qodobada aan isticmaalo horta investment marka laga hadlayo yani wax oo run ahaantii waqti fiican la geliyo u baahan juhdi ka badan videogan inaad gelisid ay kaaga baahan tahay balse ku dul maraya si oo basic ah si aad u fahantid يعني سيدا تفكري لهاد كل إنا قضبضي كواد أد فهمتد سؤالها ما أتأكد جوابها أيا وحيتها هاي سيدا شير وقادني كراسي تسلا وكلاتو سيدا وفكرة أيا مركا إنفستمنت نوع عسو كلات أن سمينا يو سيدا ما شير إن تسلا كجت أما مالا كلات أكجتو سيدا بنامبا إيو حاجة كجدن كرا سو مركا ده سؤالها جوابت استحى سؤالها ده جوابت أربتي فضلا وضعوف إن فيديو جان سي جوابت أو هشيد أنا لايك سالسيو وقاد إن كونتنتين عن يكو عجيب سي يس هرتو وما حي مركا شير أما ستوك الشير أما ستوك وحاي وحلو يقارن السامي أف صومالي السامي كلهان وحاي معناه تها شركة آيات كجدنيسا إن كميدة أنت سكميد مركز جدتين الشركة دي آيات نقولنيسا قف شركة داس قيب كميدة له ملكي لها شركة داس تامرك حقوق وحيكوسينيسا إن أو ميتين يد وين كسيد سند لها لجاوعه هدي وحلا عذينا كلت عذين كرتيد حساب سند كحساب حركة قيب قانوني كرتيد يعني ما دام ملكي لا تها معلومات أو ضبهم تها شركة داس كوساب سن إن رابورتي عاد هيلي كرتيد سيفود مركز رابورتي ده أما qofku wuxuu ka heli karaa in page-kooda meel loogu talagalay jirtay ay soo dhigaan oo dadka shirka ka gata ee ka daawan karaan amaba emailada lagu soo diri karo shirkadaha qaarkood saas ay sameeyaan ama xitaa shirkadaha intay shaqada fududeeyaan ayay waxay soo dhigi karaan meesha aad ka gadatay awalka hore exchange brokerage aad ka gadatay xitaa macluumaadkaas waa laga heli karaa shirkadaas ku saabsan yes marka سامي أما شركة فقط أساس وجدنيسا وكلته تسلا جدنيسا مايكروسوفت جدنيسا نتفليكس جدنيسا هل وجوني وجدنيسا أما سكلات سمي كرتي جرتو وحل هاي فند مرك معني ذو هاي فند إذا شركة واحد هاي شغلة بقيتها إني صوح وشو شركة أساس وكلته العقل وقصة مين كرو مركز دتك إتراد أنت أنا شركة عن بورتفوليو أكوجرو هدي عاد أنا شير جدسيد معني ذو هاي أنت أنا شركة أيا يريس aad ka gadatay marka taana waxa waaye way ka sii fududahay dhanka oo ina hal faqadka aad gadgatid maadaama aad u baahan tahay inaad macluumaad aad shirkad kasta aad ka ogaatid okay marka sidee laga rabaa inaad u fikirtid marka aad share aad sameynaysid ani marka shan qodob ayaa jirta aan isticmaalo shanta qodob ayaa marka waxay kala tahay ugu horeyntii waa inaad shirkada aad gadanaysid waxay tahay aad fahansan tahay iyo productyadeeda iyo ama service waxay haysaa yani business ideadeeda waa maxay innovation miya maxaad ka aaminsan tahay business ideadeeda iyaga vision كود يحيي قدرتك ومعموله هذا وايو يعني تامر كسامين وحي سامين سا إن عاد شركة دان إيتا شركة أو عاد وقت دير عاد investment كسمين كرتيد أما إيتا هاي شركة عادي ده عاد من سنين قدرك لو هذا وحيتها هاي وين updated حتى يعني مركز توينا شركة دان أحوك هي ساعد وقتها هدي فضيحوين اللي سوق بيه أو ميدي ده رح يعيو كليته عاد وقتها إني سامين كويالن كرتو باركشيرك وهوس آدي كرو هدي واحد في عنا جسوا قبيل كر وآدي كر هدي معمل كود غير مسؤول نما لو أركو أما يعني هذا فضيحة وحا هي وكلت اتصال عن تسلا أيام هوريتو إن CEO جيستس إيلون ماسك نيك ومعمل كسر شركة دن إسكال إيلون ماسك على أركاسه ومركز انترفيو لقى خاضع مركز وماشي وويد كعباي تذكي خلق الوحاجة أو نيكي نورشيو كدعي دراغز بو بلا خوف كست إنه ماشى كجبحو alaabtii iga khasaarin amal oo lacagtiis kala bax kuwan inay ka soo horjeedo dhaqanka noocaas oo kala darteed ee shirkadda uga tagaan qofkii oo gadan rabayna uu ka cabsado uu ka istaago yani qalqal ee suuqa ku sameynaysa oo dadkii wax gadanay behavior-kooda ciyo isbedela inkastoo aysan long term saameyn aysan ku lahayn oo maadaama shirkadda productigooda iyo qofka shakhsiga ay kala duwan tahay haddana dadka maamulo kale iyo dabeecadahooda iyo dhaqankooda saameyn ku yeelan kartaa shirkadda soo marka muhiim ah tahay inaad shirkadda aad investment aad ku sameysid updatedna aad ka tahay aad akhrinaysid journalada businessyada kaleeto
sidee wax u socdaan. qaybta saddexaad waxay tahay long term ay ku tahay oo investmentigan aysan ahayn wax oo maanta aad gelinaysa biri aad kala bixaysid ama hal bil ka bacda kala bixaysid ee tahay wax adi waqti dheer mustaqbalka kale ku 5 sano ilaa 10 sano planka. haddii aan fahmayn wax aan ka hadlayo waxaad soo daawataa video kale aan ka hadlayo budgeting sida milyaneerinta ay u maareystaan dhaqaalahooda kaasoo fiirsa wax badan ayaa ku fiday marka waa fahmaysaa mustaqbalka marka aan dhahayo investmentiga wax aan ka wado. qodobka afraad ayaa wuxuu yahay in aad si joogto ah aad u aruursinaysid lacagtaada oo investment u sameynaysid aysan ahayn un hal maalna $1 meel dhiganaya kadib dib dambe wax ugu madaraya aysan ahayn oo yacni bil kasta aad $100 waxa awoodid yacni aad ku shubanaysid meesha investmentigaaga saas oo kugu koraayo aad mustaqbalka aad meel aad saas u dhiganaysid. qodobka shanaad ayaa wuxuu yahay in aad haddii aad $1,000 ama $100 ama $1 waxay ahaato waxa investmentiga aad sameynaysid aadan hal meel kuwada in riskigaaga aad kala qaybisid yacni diversity aad ku samaysid sidaadoo kale branchiga marka inta dhowr shirkad aad gadaysid inaa hal sleenta aad iska gadato aan iska fadhiisan saa dhowti tesla markay dhulka ay gasho si lacagtaadana ay kaaga qasaarin yacni haddii aad usoo jeesatay inaad stock marketka investment aad ku samaysid waa inaad fahansan tahay oo kaleet inaa hal shirkad keliya ay kugu filneen aad ugu yaraan u baahan tahay 8 ilaa 16 shirkadood inta u dhaxeyso markaas aad shirkadahaasna aad ka kala yimaadeen baranjiyaal kala duwan wax ma ku tarayso 5 shirkadoo hal branch ka wada imaade inaad qaadatid oo kale markaas branchigaas dhaawac soo gaaraya shirkada 5 shirkad dhanba saameyn ku sameynaysa. waxa fikirayso kale haddii aad gadashid mid dhanka baabuurka kaleeto midka kaleeto waa inuu ku ahaadaa mid oo dhanka dawooyinka dhanka cuntada dhanka dharka dhanka technology yacni tech ku kala duwanta oo kaleeto markaas waxaa samaysay in aad kala qaybisay riskigaaga oo haddii midkan uu kor u kaco midkan uu hoos u dhacana ee saameyn weyn aysan ku yeelanayn portfolio-ga. inta u dhaxeysa 8 ilaa 16 ugu yaraan shirkadood waa inaad gadatid si riskigaaga u yaraado ama inaad taa ka gudubtid aad iska gadatid fundiyaala jiro fund oo index fund camal iyagii shirkadahaas midkiiba uu ku jiro 30 ama 100 shirkadood ama ilaa 500 shirkadood sida hadda S&P 500 kaleeto 500 shirkadaha oo ugu waaweyn Mareykanka ayaa ku jirto. Dow Jones oo kaleeto iyadana 30 shirkadood ugu waaweyn Mareykanka ayaa ku jirto. haddii Sweden aad deganto kale OMX30 ayadana 30 shirkadood Sweden ugu waaweyn ayaa ku jirto. inta gada lahayd Tesla inta iyo hal xabo Netflix waxa kaaga haboon oo kale inaad gadatid fund oo ku jirto shirkadaha waaweyn oo Tesla ay soo galayso Netflix soo galayso Microsoft soo galay Google soo galayso wax kasta Amazon shirkadaha badankood u baahan tahay Starbucks ay ku jiraan oo kale kaaga riski yar inta hal shirkad inta gadistid sharkaaga uu halkaas uu ku sinaa lahaa. marka stock waxa xageen ka gadan karnaa waxaan ka gadan karnaa waxa waaye horta adduunka waxa jiro adig ku dhawaad 60 suuq oo waaweyn sharka lagu gado shanta ugu weyn waxa waaye adiga labada ku taasho America New York Nasdaq midka London Hong Kong Tokyo iyo midka Frankfurt. kuwaas ayaa suuqyada ugu waaweyn stock marketka laga gato shareska ama fund wax loo yaqaano ama cryptoda xitaa gadanaysid iyo sarafada lacagaha. marka taas ayaa marka qofka uu ka iibsanaya asoo u dulmar asoo dhaxmarayo brokerage. brokerage waxa waaye waa bangi oo ku fududeynaya inaad iibsato shirkadahan la soo bandhigay. aniga brokerka aan isticmaalo waxa waaye kuwa Swedish waxa waaye Avanza, Nordnet iyo sidoo kale eToro waa isticmaalaa. marka eToro waa international actually qof kasta isticmaali kar laakiin waa complex hadaadan hore aan u isticmaalin marka kaas si fiican intaadan gadashadiisa aadan bilaabin waxa u baahan tahay inaad page aad iska xukmisid oo aad waxyaabo qaarkood kale filter fiican aad ku sameeysid intaan isticmaalkiisa aan bilaabin. marka hadii aad Africa degan tahay probably yani qofka du PayPal haysto iyo identitygiisa cadeyn karo I think it's easy adigoo wadan kale Africa joogtidna adoo Africa joogtidna gadan kartid inkastoo aan Africa jooga aan tijaabin laakiin dadka badankooda way isticmaalaan adiga I think 15 million people isticmaasho platformkaas. haddaad America degan tahay idana Vanguard isticmaali kartaa. Sweden haddaad degan tahayna dee Avanza iyo Nordnet isticmaal iswee baaki bangiyada iska dhaaf bangiyada way ka qaalisan yihiin hadhowti markaad gadanaysa ama gadaysid fiiga lagu saarnaay ayaa qaali marka kaa kulmo tali lahan. haddii aad su'aalo kale qabtiin isoo gudbiya waan kasoo jawaabi doonaa insha Allah.
marka guys haddii aad ka hesheen contentigan aan kusoo gudbiyay maanta like saar like badan saar sida u ogaado subscribe garee meesha naga kaxeeya heesoo gurmada subscribe ka badi saaciyo meel fiican aan u gaarno waad mahadsantihiin aad iyo aad